السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaasha ku xiran Misbaax Learning English. waa maalin cusub, saacad cusub iyo fiidiyoo cusub. waa 8 bisha 7 2026. waa part 2 casharkeena new words iyo ku dhawaaqista erayada iyo macnaha erayada. haddii aynu casharkeena gudaha u galno, erayga koowaad maanta waa passes. macnihiisu waa lahaansho. tusaale ahaan, erayada waxaad samayn kartaa in aad jumlad gelisid. I passes a book baa dhihi kadhaa, waxaan leeyahay buuggan. erayga labaad waxaa weeye remark. macnihiisu waa faallo ama sharaxaad. erayga saddexaad waa spill. macnihiisu waa daadin. erayga afaraad waa advice. waa talo siin ama talo. erayga shanaad waa shine, iftiin ama dhalaalid ama ifid. The sun shines baa dhihi kadhaa, qorraxdu way iftiintaa. erayga xiga waa seek. waa raadin. daawadayaal, meeshan waxaa lagu bartaa luqadda Ingiriiska, waana lagu horumariyaa. haddii aad u baahan tahay in aad luqadda Ingiriiska horumarisid, fadlan subscribe garayso kanaalka Misbaax Learning English. sabti walba, habeen kasta oo sabti ah iyo habeen kasta oo axad ah, waxaa soo dhignaa muuqaal cusub. si aad u horumarisid luqadaada, fadlan subscribe garayso. waxaa soo dhignaa casharro kala duwan sida ku dhawaaqista erayada oo phonics la yiraahdo, erayada isku midka ah, erayada iska soo horjeeda, synonyms iyo antonyms. waxaa ku dhignaa habka structure-ka la yiraahdo, casharrada loo dhigo oo la yiraahdo sheeko qoro kadibna ka soo saaro jumlado iyo erayo. waxaad ka helaysaan isla kanaalka. muhiimadda ugu weyn oo kanaalka u leeyahay waxaa ka mid ah in la helo practice, hab ay ardaydu practice u samayn kadho. waxaa jira casharro practice ku samayn kadhaan oo kanaalka yaalla. fadlan booqo kanaalka Misbaax Learning English, gudaha u gal qaybta playlistiga kana sii daawo casharrada muhiimka ku ah. halkani waa meeshaan ku horumarin lahayd luqadda Ingiriiska si free ah. casharrada aan xaggan kusoo gudbino waa casharro free ah, balse dadka kale ay ku bixiyaan course ay ku bixiyaan weye. marka waa courseska free-ga ka faa'iidaysta. haddii aynu hal mar kusoo celino erayada, erayga koobaad waa passes, waa lahaansho. erayga labaad waa remark, waa faallo ama sharaxaad. erayga saddexaad waa spill, waa daadin. erayga afraad waa advice, waa talo. erayga shanaad waa shine, waa iftiin. erayga lixaad waa seek, waa raadin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ma danaynaysaa daawade barashada tensiska luqadda Ingiriiska? haddii ay jawaabtaadu haa tahay, xarunta Grammar Knowledge waxa ay ku haysaa buug aad ku baranaysa dhammaan 12 tensis ee luqadda Ingiriiska. sidoo kale xaruntu waxay ku haysaa buugga barashada irregular verbska luqadda Ingiriiska. haddaba haddii aad daawada danaynayso, ka soo dalbo xarunta Grammar Knowledge. buugga waxaad ku helaysaa si PDF ah. sidoo kale xaruntu waxa ay diyaarinaysaa buugaag kale oo isugu jira luqad iyo cilmiyo kale. haddaba si aad uga faa'iidaysatid daawade, ka mid noqo macaamiisheena cusub. wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kadhaa lambarka shaashada kaaga muuqda.